waxaan isugu imaadna waxa waaye cudurka coronavirus oo adduunka isaga gooshaya si xawli ah oo maalinba lagaaga soo sheegayo meel adiga ku jirta meel dhow cabsida uu leeyahay sidoo u socdo iyo anaga naftirkeena xaaladeena wadan ahaan markaan fiirino meesha aan taagana dadaal badan waa la sameeyay waxaan rabaa mahad celin qaas inaan soo jeediyo saddexda task force wasaaradda oo habeen iyo maalin ka shaqeynay labadii sistemaan oo dambeysay deero waxa ku celcelisay hadalka dadkii muhiimka iskale muhiim horta idinka waa dadka technicalka oo ka shaqeeya oo waqti u hore galab ilaa iyo habeen fadhiyay annaga kaliya waa idin madaxweyneynayna marka aad iyo aad u mahadsantihiin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in dadaalkiina uu soo nagu qadinin oo maaragtay ka hortag fiican aan sameeyno ka hortagga waxyaalo badan oo ka kooban yahay wasaaradda badan aan la wadaaga wasaaradda duulista hawada immigrationka wasaaradda arrimaha dibadda dada banaanka naga jiro dhalinyaro meesha cudurka ka bilowday ku xayiran ilaa iyo 2 bilood jirta dad ku xayiran jirta oo 8 qofood oo Iiraan telefoonadoodan dhageysana ilaa hadda ma keeni karno sababtoo anagoo aan diyaar garow fiican sameeynin mas'uuliyadaas mas'uuliyad culus waa loo baahan yahay inaan taxaddar anagoo qabno يعني awood leh inaan keenno oo aan meel ku karantiino markaas aan bulshada ku sii deyn wasaaradda badan aan nagala shaqeeyay iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waa mahad celinaa iyagana idinka waxaan rabaa kaliya inaan hoosta ka xariiqo bulshada iyo wasaaradda idinka u dhaxeeya idinka saa wax u sheegtaan qayb weyn ka qaadanaysa waxaan rabnaa wacyigelin labadan bari lagu dadaalay oo asida looga hortagi lahaa waxyaalaha la sameyn lahaa wacyigelinta naftirkeeda dada kula daarto oo siyaabo kala duwan ma dhahayo waxay u jeedaan mal intention ay leeyihiin laakiin waa la iska warjeceliyaa mararka qaarkood wala xal lagu darsada waxaas lagu darsanayo waxa laga yaabaa inay dib keeni karto hadduu qofka aqoon u lahayn dib weyn inay keeni karto infodemicadan uu sheegay waa run panic hada abuurto waxlaad si qarabtay ma ogay waxba sameeyeen marka sida loo tabinayo inaan ka wada hadalno idinkana intiina u baahan cudurkan sidoo ku faafo waxyaalaha lagu kala qaadi karo si loo xakameyn karo horta aan idin la wadaagno anaga naftirkeena mas'uuliyadna saaran ay tahay xogtii cudurka wasaaradda caafimaad ahaan oo baahsan inaan idin soo gudbino idinkii marka idinkoo kaashanaya wasaaradda caafimaadka wax sax ah buuxa mas'uuliyadeeda ay qaadi karto wasaaradda caafimaadka because iyaga soo noqonaya mas'uuliyad hadii ay wax qalad sameeyaan aad gudbisaan mas'uuliyad weyn ay idin saaran wax sahlan ma aha cudurka ilaa hadda anaga xakameyntiisaan iyo inaan ka hortagnaan ku dadaalayna anagoo kaashanayna hay'adaha caalamiga iyo hay'adaha dawladda nagala shaqeeya wax sahlan ma aha laakiin waajibkana saarana waxay tahay ilaa iyo tabarta meeshay gaaraysa inaan gaarsiino ilaahay naga haayo yemen shalay midaan ka maqalnay hadda labadan dal saaka isma wareysan adaab hadda ii sheegay Tunis iyo Senegal ajiib Afrika soo galay sub-Sahara soo galay inteen kala jirnaa Ethiopia diyaarado badan ka yimaado dad badan ka yimaado waxaan isku daynay wasaaradda duulista hawada iyo immigrationka inay information ka sii haystaan manifestaha ay sheegaan dadka imaanaya wadamo hadda ilaa iyo 59 dal uu xalay ahaa 59 dal ayuu gaaray ka badan 800,000 oo qof oo cases la arkay waa wax sida lagu kala qaadi karaa xitaa khubarada idin sharxi doonto ay aad u sahlan tahay laakiin ka hortagga waxyaalo badan uu faa'iido u leeyahay inaan cudurkii aan qofka kale u gudbin waxaan la xiriirnaa oo aad mas'uul uga technical advice iyo qalab iyo nasiisan hay'adda WHO si dhow region ay leedahay regionka Soomaaliya ay ka tirsan tahay oo la yiraahdo EMRO Eastern iyo Mediterranean countries oo anaga aan ka mid nahay ilaa iyo shalay 12 dal ayuu saameeyay Yemen shalaan maqalnay Yemen waa dooniyeeda iyo dadkeeda waxay ka soo galaan baday noo soo dhaafaan aad u sahlan tahay
meelaha qaarkood markaad tagtid magaalooyinka oo tuulooyinka bari iyo waxaad arkaysaa yemeniyiintii markabka ka soo degtay magaaladay dadka interaction la sameynaa dekadaha xitaa airportka ma aha inaan kaliya aan xooga saarayno dekadaha maraakiibta imaanaysa siday sheegeen wasaaradda shaqaalaheeda madaxdeeda bannaankay usoo baxayaan dekada waa soo galayaan dadka cuntay soo raadsanayaan dadkay la sheekaysanayaan ma celin kartid laakiin haddii aad samaysid port unit oo iyaga qaabilsan markabka ugu taga soo jeeggareeya qofkii laga shakiya la geeyo meesha ama meeshooda lagu celiyo annaga Soomaali ahaan wax weyn ay noo tahay maadaama tabarta wadanka uu yar yahay marka idinka mas'uuliyadda idin saaran tabin kaliya ma aha ka taxadir inaysan bixin hadal qalad ah oo dhibaato weyn keeni kara yaana hadalka idinku badinin waxaan u maleynayaa presentation badana ka dambeeya aad iyo aadan idinka mahad celinaa soo dhawaada waa la idin tilmaamaa dadka directly haddaad wax maqashaan ama waxaan isku dayaynaa oo u qorshaysan risk communication and community engagement unitkan ka shaqeynaya task force in si regular war saxaafadeed wasaaradda uga soo baxo oo mararka qaarkood nala kormarin oo ma aragtay wixii la raba la iska sheegin taas waxay sahlaysaa idinkii mar walba updated inaad tihiin haddii xataa u baahnaatiin wax zaa'id oo aad soo maqashaan dadaa loo xil saarayaa nambaro qaasaa laydin siinayaa toos wasaaradda waxaan rabaa wasaaradda idinka inaan ladin dhixin idinkana idinku adkayno waxaan wasaaradda ka soo bixin walaalayaal yaan la gudbinin dhibkeeday leedahay wasaaradda mas'uuliyaddeeda qaadanaysaa wax walbo la fidinaaya wider platform in lala share gareeyo idinkana dan idinta annaga dana noota marka barasho wanaagsan waajibka Allah noo wada fududeeyo mas'uuliyad weyn waaye إلهي سنجها إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته